markii ay soo duubtay muuqaalkan xalay jaan iyo cirib meel ay dhigtay ayaa la la'yahay waxa ayna sheegtay in ay isdilayso meydkeedii ayaana hadeertaan la raadinayaa subxaanallah Catoos yare ayaa sidoo kale aad ugu farxay markii gabadhani ay tiri waa isdilaa waxaan halkan kugu soo qaadan doonaa muuqaalo argagax iyo murugale maslaxo oo xarigii diyaarsatay ay isku dili lahayd isla markaana sheegtay in ay isdaldalayso oo geed iska soo laalaadinayso sidaasna nafteeda ay ku weynayso waxay ninkaaga Catoos yare ahayo sida fiican ku dubeyn jiray u laab ciyaalkan aan dubeynta aqoonin oo aad ka daba wareegay oo aad leedahay waa jeclana iska daa marka isoo daceeya inuu cadaabta jahannama ilaahay iga kala yareeyo oo ogaa qofkii isdilay inuu cadaab mutaysanayo sidaasoo ay tahayna dhibka adduunkan leegma haayo waxaa jeclaan lahaay anigoo iska dhinto war gabadhaan Soomaaliya idinkuna la taliya gabadhaan hala la taliyo ama Soomaaliya markii gabadhaan ficilkii sameyn lahayd oo inay iskhaarijido ah markay sameeydo dhammaantiin tiir baa naga baxay tusaale mudnaa tiriig baadamay waxaas u soo daara hadda gabadhan la taliya muuqaalkan like saara oo si share gareeya oo dhammaan Soomaali weyn gaarsiiya degdeg gabadhii maslaxa ahayd oo Catoos yare oo u baahan ka cararta caaw waxa ay taagan tahay heer ay dhahdo meeshii loo badnaa ayaan aadayaa qabrigii ayaan markaas rabaa inaan aado oo aan anigaba markaas qudha isdhaafiyo oo aan dunidan dhibka badan aan isaga tago maslaxo oo horay u sheegtay in maskax ahaan mararka qaar la qabto ayaa waxa ay guriga soo dhigatay sunta dooliga iyada oo rabto inay markaas qudha isdhaafido xaaladda maslaxo iyo qoyskeeda waxa ay ku sugan yihiin mid halis ah qol ay hoos isaga xirtay meel ay jaan iyo cirib dhigtana waa la laayahay meel walba ayaa caawa laga baadi goobayaa gabadhan sheegtay inay saacadaha soo aadan halkii loo badnaa ay aadi doonto waxaan rabaa inaan muuqaalkan kooban kugula wadaago cuqubadii maslaxo ay ka gashay Catoos yare oo banaanka timaaday maadaama isagoo u baahan oo dhahayo walaalay anaa ku baahan ha iga tagin anaa ku dubayna anaa naagteeda ta asagoo ku hayo ay ka maqaalifowday oo wiilal dhalinyaro ah oo gobol ka tagay oo qaarkood xitaa aan aqoonsida wax loo dubeeyo ay gabadhaas Catoos yare ka raacday waa Catoos yarihii qoobka ciyaarka ku fiicnaa waxa ay ka doorbiday wiilkan Joojolo lagu magacaabo oo aan si gaar u fahansaneen habraacyada ay u baahan tahay dubeyntu oo ay ku sugan tahay inaan kugula wadaago iyo guri gaar ah oo ay ka degtay magaalada Muqdisho iyada oo halkaas suntii dooliga soo dhigatay oo ay rabto inay markaas meeshii loo badnaa ay ku sii aado oo ay aakhir markaas isku dirto inta aanan muuqaalkan oo dhameystiran guda galin iyo faahfaahintaba waxaan ka codsanayaa muuqaalka inaad like saarto caaw muuqaalkan like badan saara si saaxiibo badan oo gabadhan nolosheeda u badbaadsho oo u gaaro waa dumar Soomaaliyeed markaas shaydaamo iyo waxa la shaqeynayo shaydaanka ayaa ka tanbadinaya na ilaahay u soo laabo maslaxo ilaahay iyo rasuulkiisa u soo laabo qof ladana tahay waa nooshaha waa cabta waa caafimaad qabta waxa intaad caaw meel soo fariista ku dhahdo waa isku dilayaa meesha ma taal ilaahay u soo laabo ilaahay u soo laabo Catoos yare dubeyntiisa u soo laabo oo ninka ka maqaalifowdo ku soo noqo aynu ku leenahay muuqaalkan sidoo kale share gareen badan ku dhufta dhammaantiin share gareeya si saaxiibo badan uu u gaaro qaybta hoose ee commentigana aragtida iyo fariinta gabadhan aad u reebaysaan waad inoogula wadaagi kartaa daawade maslaxa Saalax Suleymaan waa gabar Soomaaliyeed oo baraha bulshada si weyn looga yaqaano dhawaan waxa ay sheegtay inay nacday oo ay ka tagayso ninkeedii Catoos yare oo qoobka ciyaarka si fiican ay ugu amaantay iyada oo live ka hadlaysa waliba dad hortiisa iyada oo ka hadlayso waxa ay sheegtay inay ninkaas ay ku nacday baahi iyo markaas cunna la'aan laakiin dhanka kale isaga ma aysan ka soo dayrin oo waxay tiraahday aad ay ugu fiicnaa waa la joogay Catoos yare waa uu soo fariiso waxa uu sheegay inuu gabadhaas uu qabo xaaskiisii ay tahay waa ay diiday oo waa ay ka maqaalifowday ilaa ay saxaabiyiintiina waa ay jiri jireen dumar maqaalifo waxa la dhahaa dadka aan aqoon hadaan u jilciyo ninkii naagta qabay inay naagta ay iska tagto oo ninkii ay ka tagtaba ninkii oo naagtii oo qaba oo leeyahay waa ku qaba ay iska tagayo waxa waay meel kale iska aaday naagtaas waxa loo yaqaanaa maqaalifo ay Soomaalida u taqaanaa ama ninkii ay ka tagtay ninkii markii ay Catoos yare ah ay ka tagtay waxa ay la xiriirtay oo ay xiriir jacayl soo bandhigteen wiilkan iga dambeeya ee Joojolo lagu magacaabo oo reer gobol ah sidaan xogta ku hayo waxa ay xiriirkaas ay sheegeen in 3 bilood kadib ay aqal gali doonaan markii ay cuddada soo dhameysato waa sida ay iyadu aaminsan tahay wiilkan oo la sheegay inuu soo qoobka ciyaarka Catoos yare aan loola bagac dhigi karin ayaa haatan wax uu gabadhan gelinayaa arin mugdi ah jacayl iyo xiriir beena ayuu la jilay waana uu uga baxay waxa la sheegay maslaxo in rag qaar ay markaas caadi ay u kulmeen kulanka ahaa inay kulmeen balse ilaaha naga og oo anagu kuma dambaabi karno kadib waxa la sheegay gabadhan in xaalad maskaxeed ay soo food saartay waxa ayna sheegtay caawa inay qudha isdhaafinayso muuqaalkan daawo
adduunkeydii kaanii dhaafay mar damba miyaa arkaysaan hooyo iyo aabo idinkan waxaan ilahay iskii cafiya waa jeclaan lahaa inay adduunkan ila joogo iska kii cafiya anigo maxaa la dhahay markii ugu dambeysa muuqaal duuwaay waaye marka iisoo daceeya inuu cadaabta jahanama ilaahay iga kala yareeyo oo ogaa qofkii isdilay inuu cadaab mutaysanaayo sidaasoo ay tahayne dhibka adduunkan leegma haayo waxaa jeclaan lahaay anigoo iska dhinto maslaxo marka waxaan rabnaa inaan halkan fariin kooban aan hawada u marino bulshada Soomaaliyeed idinkuna qaybta hoose ee commentiga fariin hawada waa ugu marin kartiin gabadhan waa gabar Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed aad jecel bulshada Soomaaliyeed aana taageerto waxaan kugula talinaynaa walaalay shaydaanka ku haayo iska naar laba ragcoo salaado sunnah tuko ilaahay u soo laabo qof bili aadan ah taafiri marka aad tiraado waa isdilaya markii godka lagu dhigo waxa koobaad lagu weydiinaya waxa waaye nafsadii ilaahay uu amaanada kaaga dhigay dhamaanteen waxaana saaran nafsad uu ilaahay markaas amaano inooga dhigay qofkii gacantiisa isagoo maskaxdiisa iyo miirkiisa jooga gacantiisa isku dilaane akhri naftiisa waa la weydiinayaa marka gabadhan waxaan leenahay walaalay ilaahay u soo noqo rasuulkiisa u soo laabo laba ragcoo salaado sunnah tuko maslaxoy ninkaaga catooshira ahayo sida fiican ku dubeyn jiray u laab ciyaalkan aan dubeynta aqoonin oo aad ka daba wareegay oo aad leedahay waa jecla na iska daa war gabadhan Soomaaliya idinkuna la taliya gabadhan hala la taliyo ama Soomaaliya markii gabadhan ficilkii sameyn lahayd oo inay iskhaarijido ah markay sameeydo dhamaantiin tiir baa naga baxay tusaale mudnaa walaalkayga adduunka waxaa ugu tagay dadka cadowgayga aan nolosha adduunya ii quurwaay oo nafta ii keenay adduunkeydii kaanii dhaafay mar damba miyaa arkaysaan hooyo iyo aabo idinkan waxaan ilahay iskii cafiya waa jeclaan lahaa inay adduunkan ila joogo iska kii cafiya anigo maxaa la dhahay markii ugu dambeysa muuqaal duuwaay waaye marka iisoo daceeya inuu cadaabta jahanama ilaahay iga kala yareeyo oo ogaa qofkii isdilay inuu cadaab mutaysanaayo sidaasoo ay tahayne dhibka adduunkan leegma haayo waxaa jeclaan lahaay anigoo iska dhinto walaalkayga qaaliga ahaa ku salli xabiibkeeni calayhi salaatu wasalaam